عليكم ورحمة الله وبركاته. maalin wanaagsan meel kasta aad joogtaan. Cunista iyo cabista waxyaabaha sokorta ay ku badan tahay waxay keenaan ama waxay qofka u keenaan in uu qofka miisaankiisa uu kordho ama uu cayilkiisa uu bato, sidoo kale in dheefshiidkiisa iyo cunto qaadashadiisa ay yaraato, inay qofka ku yaraato maadada calciumka, kadibna uu isku arko lafa xanuun iyo weliba caajisnaan daran, burbur suus iyo xanuun dhanka ilkaha uu ka dareemo, xataa ilkihiisu ay noqdaan kuwa aan difaac saa usii badan lahayn oo xataa dabeesha ay dhibayso, in guud ahaan difaaca jirkiisu aad u yaraado, jeermisyada iyo weliba ilmo aragtida oo jirkiisa si fudud kusoo galaan, dareenkiisana uu yaraado, inuu isku arko hargab aan ka bixin oo markasta kusoo laalaabta, sidoo kale in xasuustiisa aad u yaraato, hilmaanshihiisana uu aad u bato, in wejigiisa muuqaal ahaan markii la fiiriyo uu da-diisa uu ka weyn yahay. sidoo kale waxaa soo hoosgeli kara cudurada sida macaanka iyo weliba xanuunka ku dhaca keliyaha ee keliya xanuunka haddii la badsado cunista ama cabista sokorta, iyo weliba sidoo kale qofka inuu isku arko timihiisa oo midabkii madowga ahaa uu ka dhintay ama uu ka bedelmay. haddaba intaasi in ka badan ayaa laga dhaxli karaa haddii sokorta cabisteeda ama la badsado waxyaabaha sokortu ay ku jiraan. sidaa ognahay sokortu waa u muhiim jirka, gaar ahaan sokorta waa awoodda iyo weliba enerjiga maskaxda ay ku shaqeyso, balse haddii aad sidii loogu talagalay si aan ahayn ama aad xadkii dhaafisid, waxay keeni kartaa ama aad ka dhaxli kartaa dhammaan waxyaabaha aan soo sheegnay oo dhan.